meel iska maraayo ee gabadhaan boorso yar ay wadatay ku agtuurtay kadibna wiilkii wuxuu u malay inay ka dhacday markaasuu yiri marwo oo boorsadan qaado wiilkana dhagaha waxa ugu jira earphone markaasii tiri lacag ay ugu jirta 200 aaw lacagta igu jirtay markaasuu yiri 200 ah xayta 200 ani meeshii kaaga dhacdo waan ku siiyay ma fahamtay 200 ka rabaa sababtoo ah boorsada adaan kugu arkay 200 waa ka maqanta waxa ku dhaafiiri ana 200 ma baahni waraya ii bar jawaabkaaga maxaa ka hadlaysaa ku yiri ani nin ganacsada lacag haysta ah oo baahi ima hayso maxaa ka hadlaysaa wajida furaha oo tan 200 u baahan ma kuula aga wax weyn ka qaldan marwo isku badnaa waa lagu dhaxo ku hadlaysi ma fahmin wajida lagu dhax kaarkayga dawaqyaashan iyo kambariyashan aan leeyahay 200 shilin adiga kugu jirta waxa uga baahanahay markaasii tiri ma aan lacagteeda u baahanahay waxa ku hadlayso ma ogtahay lagu dhax qof noocaata ma fahmayaan waxa ka hadlaysid koodhe ana waxa qosay ma laha lacagta boorsada ay ugu jirto aan u baahanahay u baahanta wixii ka qaato orka qaada lagu dhax aniga nooca ay ugu qaldaysay ma ihi baahida aad sheegaysan adeeg ku hayso ani ima hayso haday si ku heen hadda maxaa u baxsatay waayahay oo nin taajiraha haba ilaahay baa iga dhigo ku yiri ma fahanti hadal badan ma baahniye nabad gali inta garba ku dhufto si dhaqaaji sitira anu basas ilaha miya tan kugu dhiga waa ogaan doontaa waa u soo fakarta ninkan ay heelay waana tagta xarash xun ay u qaadabo maalintii dambe ninkan oo gurigiisa iska jooga albaabka loo soo gargaraaco iga fur kaale i caawi soo orod iga fur wuxuu yiri maxaa rabtaan mudane albaabka iga xirmay waxaan rabaa inaa ii furto kaale albaabka xirmay maxaa oo igu furmi waayay wax yar isugu ku dhaw ku furaaya boorsadii gurigiisa ku dhex tuurtay balaayad mar walba boorsadan ay la wareegtaa oo soo baxay wiilkan waa daacadba ana ku furayna keeno ku dheh ma maqli jirtay asxaanaha saban shar kuma timaado albaabkii u furay wiilku waa kan albaabkii u furaya midba mar ku tijaabina dambe u furmay waa kana wuxuu dhahay waa ku furay soo gal soo bax adigana dhib ma laha waa ku mahad celina waa mahadsantahay ee wax yar isii sug intaan ka soo laabana hal mare dada banaanka iga jooga u soo wacanaya guri weyn waaye dhinaca gadaalay ka soo gashay ninkii meelahan warwareegaya oo guri qurux badan waa diris waa meel gabadhan asagoo meelaha warwareega furihiina wali gacanta ku hayo oo dhahay gabadha xagee ku daaday isugayba dhahdee oo waxa arkay waxyaabo meel ku qorqoran oo fahmi waayay kaasoo furo rabo inuu meesha u dhigay nin ordaya soo galo wax wato maryaa tuuga tahay alaabteeda xad rabtaa tuug loo way maxaa meeshida ku keenay maya aniga tuug ma ahiye gabadha marwada xaaskaaga miya ay dhahday ee caawi oo gurigeeyo iga xirmanay isiisu ma faanta anigu tuug ma ahi mudane anigu qof tuug ma ahi maxaa ku hadlaysaa wariyaa tuuga taa maanta malagaaga galo ku dheh maxaa ku hadlaysaa wariyaa keeno dhaha taleefanada iyo waxa wadi kaaro kii oo wuxuu ka baxsaday bahalkii oo baajka shaqada oo lacaga haysataaba nin lacag haystaaba tan ninkan waa la soo shirqoolay in lacag rakaato looga qaato la xoogaa la rabaabo inta la soo shirqoolay ulo gadaal ugu hayaasana wuxuu u maleeyaa inay bastoolo tahay mudana see wax u wadaa iga raal noqo xagee baajkii waxlaabteed u qaadatay ma waxa ku soo galay meeshaan loo baahan yahay ma fahanti lacagtii oo lagoynaysaa maanta isoo gashaba wax badan lacag raadi iyadoo socotay irid iga soo gashay Soomaha waxa gurigan ku soo galay adaa ka sheekeyn doontaa xagga u soo socaa lagu dhawriyaa maanta malagaaga galay adaa guri abeesa soo gashay wixii kugu dhacday